salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Halkani waa Ilays Online. Daawadayaal waan idin salaamayaa meel walba adduunyada ka joogtaan. Barnaamijkeeni guud ahaan wuxuu ku saabsan yahay xaaladda degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose maadaama webiga Shabeelle uu fatahaad uu ka geystay guud ahaan degmada Afgooye xaafada ka mid ah degmadaasina ay dadkii ku noolaa ay ka barakaceen. Barnaamijku waxaa idinla socodsiin doona anigoo Geele. aynu ku bilowno magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay xaaladda degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaasi oo uu fatahaad uu ka geystay webiga Shabeelle. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo loo xil saaray xaaladda gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Afgooye iyo hay'adaha deeq bixiyaasha iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose. shirka oo shir gudoominayay wasiirka wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxaa ugu horeyntii warbixinta xaaladda gobolkaasi gaar ahaan degmada Afgooye laga dhageystay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Najaax. wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka maareynta iyo musiibooyinka Koonfur Galbeed iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay tilmaameen in ay muhiim tahay in loo gargaaro bulshada ku dhibaataysan gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan degmada Afgooye. hay'adaha gargaarka ee ku sugan gobolka Shabeellaha Hoose iyo kuwa deeq bixiyaasha ayaa ka howlgal gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in ay ku dadaali doonaan sidii ay deeq u gaarsiin lahaayeen Afgooye si isku mid ahna ay ugu gurman doonaan gobolka Shabeellaha Hoose. degmada Afgooye ayaa waxa ay ka mid tahay degmooyinka ugu wax soo saarka badan dhanka beeraha ee gobolka Shabeellaha Hoose. waxaa sidoo kale degmada Afgooye ka soo xarooda lacag aad u fara badan dhanka canshuuraha ah, lacagtaasi oo maalmaha kalweynaha loo yaqaano lagu qiyaasay 200 ilaa 282 milyan shilinka Soomaaliga. lacagtaasi ayaana la ogeyn halka ay aado cid ay gacantiisa ku dhacdo. maamulka Koonfur Galbeed xarunta isku meel gaarka ay tahay magaalada Baydhabo ayay gacantiisa ku dhacdaa. Shabeellaha Hoose ayaa lagu kala qaybsadaa mise ma soo dhaafto gudaha degmada Afgooye. dowladda federaalka Soomaaliya maamulka Koonfur Galbeed iyo midka degmada Afgooye qudhiisa ayaana waxba ka qaban fatahaad uu ka sameeyay xaafadaha kala duwan sida Baalguri, Damaley iyo xaafada Aytira ee ka tirsan degmada Afgooye. xildhibaanada deegaan doorashadu ay tahay degmada Afgooye iyo guud ahaan kuwa Koonfur Galbeed ee dowladda dhexe u matala ayaa waxa ay sheegeen ay ugu baaqeen dowladda federaalka Soomaaliya in ay gargaar gaarsiiso degmada Afgooye. marka laga reebo maamulka degmada Afgooye, gudoomiyaha degmada Afgooye ee dhawaan xilka lagu wareejiyay iyo qaar ka mid ah maamulkiisa ayaa kaliya ku soo galay dhowr xabo oo sabir ah. sidoo kaleeto ma jirto hay'ad gargaar ay la-aan yimaadeen marka laga reebo qurbo joogta degmada Afgooye ka soo jeeda ee ayagu isku soo ururiyay sidii ay ugu gurman lahaayeen dadka ku dhibaataysan degmada Afgooye. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay gudi u saartay ilaa aanana ma jirto wax gargaar oo la soo gaarsiiyay dadkaasi. degmada Afgooye ayaanan la saadaalin karin xaaladda waxa ay ku dambeyn doonto. sidoo kale haddii aanan loo helin dadka ku barakacay degmadaasi gargaar degdeg ah, waxaa sidoo kaleeto laga baqayaa in ay ka dilaacaan cudurro kala duwan sida malaariyada, kaneecada. sidoo kaleeto waxaa la sheegayaa in daadadka biyaha webiga Shabeelle degmada Afgooye ay la socdaan masas iyo bahla kala duwan. barnaamijkan halkaas ayaan kusoo gabagabeynaa. waxaa idin la socodsiinay anigoo Geele. tan iyo ismaqal dambe xiisle waxaan idinkaga tagay sida iyo amaan Allah.